marka hore waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. walaalayaal salaan kadib waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in talaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dawladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taala. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. ujeedada uu ka leeyahay talaabooyinkan guracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay'adaha dawladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u cadeynaya in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas'uul uga tahay hogaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay'adaha kala duwan ee qaranka. sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha. cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiigsan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. waxaan u cadeynayaa saa darteed musharax ayaa tahay, gees u istaag sida musharaxiinta kale, kursigan u tartan. saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan, wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay'adaha iyo awoodaha qaranka uga faa'iideysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dawladnimada haddii uu waayo dantiisa shakhsiga ah, taasoo ah waan booba ama waan banada. caqliga ha shaqeeyo Soomaaliyeed, ama saan rabo ha lee yeelo ama dalkan burburina iyadana ma shaqeynayso. waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in ay iga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho hufan oo horseeda in awoodda dalka si nabad ah lagula kala wareego, si looga baxo cakirnaanta siyaasadeed ee uu dalku geliyay madaxweynihii hore. aniga ka shakhsi ahaan waxaan hortiina ka cadeynayaa in aan marno u dulqaadan doonin in doorashooyinka dalka in la boobo, in la dhaco, in lagu takrifalo, in sida la rabo laga yeesho. waa doorasho ee waxa ma ahan xulasho. waa xaaraan in doorashadan dadka qaarkood ay iska waayaan iyadoo la leeyahay dadka hebel iyo hebel kursigan iska leh. kursiga baarlamaanku waa doorasho ee ma ahan xulasho. anigana diyaar uma ihi inaan ummadda Soomaaliyeed sidaan hore uga ballan qaaday uguna dhaartay in gacanteydii ama gacanteeda lagu cuno ama dembi lagu galo ay cid kale uga faa'iideysato. saa darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed mar kale u cadeynayaa doorashadan waa inay noqotaa doorasho hufan oo cadaalad ah loona siman yahay. guddiyada waxaan farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha ay howlaha ka socota doorashooyinka inay u gutaan sida cadaaladda ku salaysan, doorashadan ay noqoto mid hufan. guddigii aan ku arko inay baal maraan ama u eexanayaan ama ay fududeynayaan doorasho aan hufnayn kama yeelayay, waana taaganahay. shacabka Soomaaliyeedna waataan ugu dhaaranay dhammaanteen. sida aad la socotaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shirkii madasha ee lagu ballamay waa sidiisii. dowlad goboleedyadana way imaanayaan, waana ku ballanay, wayna soo socdaan dhammaan. all agabkii logistikada ahaa iyo diyaaradahoodii waa loo diyaariyey, wayna imaanayaan. shirkana wuu furmayaa. shirkaasoo looga hadlayo dardargelinta doorashooyinka, hufnaanteeda
iyo dhamaystirka sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada. marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeedna u sheegaya musharax kastana u sheegaya in iimaanka lagu qabo doorashadan waa aqoon isku dhiib, cidna kama yeelayno in kaligeed ay qoriga haysato. hal heeska maanta waa doorashaha afgambi maya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.